halkani waa alxaqiiqa. warka xiisihiisiyo xajka qarsooniyo halkaa qarsoona alxaqiiqa. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. halkani waa alxaqiiqa. faalada barnaamijkeenu maanta wuxuu noqonayaa shir habeen hore ka dhacay Hargeysa oo siyaasiya oo niman qabsadeen koox hogaamiye dhaqameed iyo guddiyo ah balaan loo dejiyay beesha habar jeclo in jifo loola shiro iyo ergaabo wax u yaala huwantu go'aan ku gaadhay ama ay shirkoodii kusoo gabagaboobay ee ay ka yeelayso arrimahaas inaan ka faaloodo ayuu barnaamijkeenu gaarayay. aan bilaabay waxa mar walba aanu ka dignaa waxa dadka loo maleegayo ee lagu jiro ee soo bixi doona ee aan wanaagsanayn ee aan magaranaysaa lagu shirqoolay Soomaaliland iyo dadkeeda. in badan baa waxaan ka digay dhaceen tanna kuwii bay ka mid tahay haddii ragga shiraya wanaag ku shirayaan oo xisbinimo ku shirayaan oo aan wax kale u hooseyn dib macna ma yeelatay shirkoodu ayaguna kamay xanaaqeen anna waqti maan geliyeen sababta waqtiga u gelinaya ayaguna ay u dhibsanayaan waxa weeyaan de wax la maleegayo oo aan sax ahayn. Hargeysa shirkaas ka dhacay habeen hore niman odayaal ah oo hogaamiye dhaqameed ah oo kuwii inoo soo gooyay sharcigeennii bedelay ee seekeen dhigay dhexdhexaadka ee inta badan ka hadlayay ee doorashada saarka inoo isu keen saaray ee sharcigii waddanka gees maray ee kuwii buurta fuulay ay wada socdeen ay isu keen feeraariyeen uu weeyaan kuwan ka hadlaya 7 nin oo inaan magacyadooda sheegaanay muhiim ahayn ayaa haddii alla kuu roon yahay iyo 4 kale oo guddida ah oo haddii alla kuu roon yahay food iyo ay ka mid yihiin Saciid Bidde iyo Faraxleys iyo Maxamed Nuux kuwa kalena waa la garanaya ayaa hay waxa lagu go'aansaday in la isqaybiyo oo wadan loo ololeeyo oo qaybna tagto sanaag oo ceelaf weyn qaybna burca fadhiisato. waxa kale oo la go'aamiyay in guddida aymin ganacsatada garxajis oo ay wada socdaan ay u sheegeen inay raashin geeyaan Boordarkeen iyo Qorluud raashinkaas oo laga dhigay in garxajis garab taagan yahay oo ay tulkooda habar jeclo ka caawinayaan dagaalka haysta ee dimaal baragooda lagu leenayo ee u gaarka ah gaalmada bal lagu mariyay arrintaas oo aan ahayn mid sax ah ama daacada ama gurmad daacada aan ahayn mid beena ah oo iyo khiyaamo ah oo olala uun halka la galay ay noqonayso macnaheedu waxaa la oranayaa wanaga idin soo gurminay codkana siiya wayno kow dad la isu dilayo oo lagu wada socdo oo dalkooda lagu soo duulay oo aan la kala jeclayn inay yiraahdaan waan idin soo gurminaynaa raashin baan idin keenaynaa waan garab taaganay maanta codkana siiya oo sidaa la isu baayaca waa arrin ugu weyn ugu cusub. waxa burca ka dhacday horena waan u sheegay in Axmed Faarax odayaashooda la kulmay oo galbeedka burca odayaal ah oo xisbiga wadan uu yahay la kulmeen oo raada codkana siiya anana waa idin hiilinayna oo maanta labada saal iskarab yaala odayaasha jawaabtoodu waxay noqotay mid aan waxba la isla ogolaano dii ay yiraahdeen anagu waxba idinkama baahnin hiile dagaalka nagu socda waan iska rabayna kuwa waan isnaqaana kuwa aan istireyne aanu ka dhib la'aano ayagu jawaabay doorashada uma jeedin difaac baan ku jira isla maanta daalo hotel oo burca ah waxa lagu shiray 6 nin oo reer Qorluguda ama Solomadow isla sidii ay raggii maalintii ku hor la shiray kuwana ay ka dalbadeen inay hiil u hayaan ayaguna codka ay siiyaan kuwana sidii si leeg ayagu jawaabeen. arrimahaas waa qaar soconaya oo aan dhaqankeena ahayn oo inagu cusub. siyaasiyiinta xisbiga wadani iyo ururka ka labaduba waa laba maanta u shaqeynaya cadowga Soomaaliland iyo huwan iyo dawladaha in la dagaalamaya iyo wixii Soomaaliland ka soo horjeeda. nimanka Hargeysa ku shiray waa nimankii dawladeena iyo dadkeena ku lahaa maxaabiista baanu keenaa waan baanu wadnaa taasoo aqli galaba aan ahayn haddii la yiraahdo naga taga maxaabiis midna ma keenaysan been baa wadaana ujeedada qura kala hayo waxa weeyaan
dowladdii baana diiday oo diidan nabadda arrintaasi hoosaasiisuun bay ahayd nimankaasi shiraya ee reeraan mataraynaa leh ee magacyada reeraha sheeganaya kuma dhacan nin quri raggaa la leynaya maalin walba inuu taxsiileeyo ama ay ka hadlaan waa mid subxaana leh oo sheegaya caddaynaya inaanay daacad nimankaasi ahayn oo ay fashilin yihiin subxaana allah hallo wixii dil ka dhacay qorshaysan ee ragga lagu laayey ee maxay geljira lagu laayey lagu beegsanayey ee mar iyo 2 iyo 3 toban ahayn ee boorkay lagu gulbay 9 jirada masaajidka jooga lagu leenayay nin quri kama hadal doorasho baa laga hadlayay iyo hal isu fura iyo ay maxaabis baan soo wadnay waxaan jirin maxamuud xaashi ayaa isaguna qasan kari waayay maanta hadalkiisii ama ujeedadiisii isagoo fariinta u diraya cid kale waxa uu ka dhigay ceeb iyo cay iyo in dowladdu ay ka dambeysay ciidamada habar jeclay ee madaniga is urursaday oo siday ku yimaadeen aynu ogeyn siday ku yimaadeen waa sidaa maanta ba socota ee lagu leenayo dadka shacabka ah ee lagu beegsanayo qabiilka in loo dilayo ayaga waxba samayn markii taas ay dhacday ayay habar jeclo qurbajoogoodii qolqoljooggoodii ganacsatada ay iibsadeen hubka maadaama arrintii ay soo dhaaftay dagaalkii dowladda iyo jabhadda ahaa wixii nooca ahayn daawanayna baa la doonaya in taariikhda la bedelo oo laga dhigo inuu muuse biixi iyo dowladdiisu ay ka dambeysay dadka shacabka qoryaha iibsanaya waa arrin aad iyo aad wax lala yaabaa gaari dacwas ku sawirantay baan arkay aynkan iyo aynkan aan arkay waa kan la dhageysta saaray dadkii baa dib loogu celiyey saaka magaalada waxaan soo galay 11kii markaan halka gooladda ka soo laabtay waxaan la kulmay gaari buufisan oo ay dhinaca kaga qoran tahay SSB dawacana ku sawiran tahay miyaad garanaysaan gaarigaa cidda leh miyaad garanaysaan waxaa leh ciidan beeleedyaa leh maxaa keenay ninkaasi aqoon darro ma hayso laakiin wuu badheeraya waxaanay ku foogan yihiin siday jabhado dowladda Soomaaliya ka soo horjeeda ay u sameeyeen lahayn horena way u sameeyeen xisbiga wadani maantana maxamuud xaasha kusoo biiray oo isaguna kula socda caawa niman baan arkaynay social media la wadwado oo boormale jabhad baanu filim ay boormale in jabhadii iyo galbeed inaga iimanayso dadka runta aan u sheegay horta taasaan taa ka seexda baan leh jabhadu ma runtii maalintii hore ee Ethiopia ayna heshiiska la gelin bay jirtay oo la waday oo dowladda wadeen oo kilka sharaad laga waday oo dowladda kilku waday maalintii heshiiska Ethiopia iyo Somaliland dhacayna waa ka baxay waxa la xasmeeyo maantana waxa weeyaan waxa soo kiciyay raggan maxamuud xaashi xisbiga wadani waxa ka hadlayay ninka la yiraahdo maxay ina muumseed hore ayuu uga hadlay nin kale la yiraahdo maxamed cali ee ku musharax ku xigeenka cabdiraxmaan irraa oo dila ka soo jeeda shirkii golaha dhexe ee burco ka dhacay ee kan ka horeeyay ayuu ka jeediyay khudbad uu leeyahay jabhado raja abuuraya baan keenay markaasoo ay qolo reer nuur tiri jabhad baa samaysan 4 saacadood jirtay oo hanjabayay oo niman tuuto xiran ay hanjabayeen wuxuu cadeeyay inuu sameeyay waxaynu ogeyntii qarno la geeyay oo laga shiray oo lagu tashaday oo ilaa farmaajo xillisanay waxaynu ogeyn markii laga soo eriyay Puntland soo eriyay tii naga bax inay tabca gashay oo haddana xilkasnimo dowladdeenu leedahay iyo aqli ay leedahay ay ku baajisay dagaalka halka haddii maalinta xirsi tiisi ay haydo maalintii maamulaya ay ahaan lahayd uu geli lahaa ciidanka hadee dabka saari lahaa sidii kuwii dee buu hodlaba uu saaray aanu daawanaynin waxaasoo dhan waxaa lagaga baxay dulqaadka dowladdeena iyo aqli oo ay ka cararaysay in gudaha Somaliland iyadoo dibadda laynagala dagaalamayo Soomaaliya iyo waxay wadatay nala dagaalamayaan in gudaheena la dagaal ba ka qarxay oo fursad la helo taasoo madaxweynuhu ka dagaalamay waxa kala shaqeeyay ilahay caafimaad ka siiyay Sultan Maxamed Xirsi Qani maydin maanta nimankaas ilaa inta 7 sano waxay ku fognaa sidii dowladda jabhada ugu sameyn lahayn iyagoo la xidhiidhaya cadawga Soomaaliland markaana farmaajo dagaalkiisa bay
qaybka ay waxa xiriirinaya mahdi guuleed maantana dowladaha MAU ka soo horjeeda ay la sifayeen fariimaha ay dirayaan markay hadlayaan ay dirayaan ee madaxweynuhu markuu Djibouti u jawaabay maxamuud xaashi xis ugu jawaabayaan waxa weeyaan fariin bay u dirayaan cidii ay lacagta ka sugayeen waxa maanta mideeyay ay u midoobeena waa inay lacagtii ay doorashada ku gali laayeen ka sugayeen dadka ee Soomaaliland hadda haleeyahay way idin muuqataa wax badan oo idin sheegay indhihiina hor yimaatay guulaysan maayaan oo kama aqli badan dadku intii ay qaranayeen waa ku aqarsan kari way banaanka ka sheegay haleeyahay Soomaaliland iyo beesha habar jaalo war indhihiina ku hortiin shalay bay shir ku qabteen oo aynu ogeyn u fashiliyay Suudaanka gudaha habar jaalo oo maxaabiista ka soo hadlinayay oo al-shabaab soo hadlaysay oo la idinha qasab ku qaata nabad waa taariikh dhacday way soo weyday maantana waxa la wadaa waxa doorasho waxan ma ahe dagaalkii rag indidkeeda ka mid oo raggiina u haysataan baa idin kula jiro oo kuwa aan ay xiriirayaan tala qaadan ka wada tashanayaan sida u sabileedeen habeenii maalin oo wada hadlaya ninka gudoomiyaha sheeganaya habar jaalo ASF xalay ku wala dileen waxay ku wicid u xigay maalintii hore ku wala dileen ayaga ay ahaayeen haddana ma taasiyeen karo kama hadli karo waa u sheeganaya waadax baa loo wada hadlaya waxaan leeyahay Soomaaliland war markii la isu bareerayay ee runta la isu sheegay inuu joognaa ka kaca fadhiga dagaal la idin tashaday oo meel walba la idinka tashaday dawladda ku jiraan oo reer ku jiraan oo Soomaaliland ku jirto ayaa idinku socda socon mayso kuwii gudihiina joogay oo xisbiyadii sheeganaya iyo odayaal iyo magacyo wanaagsan sheeganaya iyagoo ku jira dagaalkii inaad daawataan oo idin doqoniimo oo idin ayaan daro warunta la isu sheego ee leeyahay halka waxa ka baxaya xogtan idin siiyay iyo taladaydi iyo gubaabadii waxaan soo noqonayaa ergaabo nimankaas way tushay dagaal baana u diyaara oo ay u hubursadeen ragiisii diyaarsadeen oo isaankiisii sugeen waxaana ku beegayaan saan xogta ku hayo maalinta doorashada ayagoo oo ummadda tusaya kale in ergaabo sida gaalkayo kale ay tahay oo aan doorasho ka dhici doonin maadaama qayb ka maqan tahay oo ayagu ay qayb ka maqan yihiin talana ay ku saareen dadkoodii ka gobadhida ka gurayeen dagaal bay diyaar u yihiin reer ergaabo nimanka kolbal nabad baa shuruudaan idin haynaa iyo kuwa maxaabiis baan soo xaraynayna ee labada reer sheeganaya qolana habar jecel sheeganaysa qolana garxad sheeganaysa labaduba kuwaas lamid way daawaleeyeen wada hadlayeen wada tashanaya horana wada tashanaya dagaalkii ku wada jireen las caawdo maxay uu ka wakiilhaa Cabdishaaq Khaliif maantana waa la xiriirin waxa maanta la idin leeyahay waanu idin soo gurmanaynaa raashin baanu idin keenaynaa codkana siiya xagee ka dhacda dhaqan ma lahaan jiray gurmadka runta ah waa kii shalay markii wax idin ku dhaceen la idin ka soo gurmanay habar oo idin soo gurmatay ee kuwa kalena ay hadal hayeen inay idin soo gurmadaan gurman laayeen kuwa kalena kamaantana waa soo gurmanayaa ay ku soo tashadeen habeen hore niman garxad sheeganaya raashin geeyo burqurkayn iyo qorlugudow kuwa sidaa leh ma aha haddii alla kuu roon yahay niman idin soo gurmanaya ma aha niman ay ka dhab tahay idin kulamay dhaceen hadday daacadii inay tulliimo iyo wax idinka dhexeeyaan iyo dal idinka dhexeeyo inay barbar dhigaan cod iyo olole iyo gurmad ninka idin soo gurmanaya waa kii isagoo waxba idinka doonay idin soo gurmaday maalintii hore lacay ee la habris dhacay buu keenay kaasa kii idin soo gurmaday ka maalin walba ka hadlaya ee waxa idinku soo socda idin sheegay idinka degaya u bareeraya ee la beegsanaya ee hadii aan la ku roon yahay ayaa idin daacada oo xigaal idin ah kay dhibayso ninkii la idinka dilaa ee nin iyo loo dilay sabab laanta lagu dilaa kay dhibayso waa ka hadlaya annaga ugu dhow kuwa magac sheeganaya oo ayna dhibayso oo wax la maleegayo fashilinayna oo waqti gelinayna oo lacag gelinayna oo hadii aan la ku roon u bareerinayno inaan qaxino waxaan leeyahay shacab iyo dawladba arinta fadhiga halka ku calays bareero waxa uu qorshaysan xuqaasha habar jecelo oo ka fayoobay waxa cudurrada dadkeena hoggaanka dhaqanka galay in lacag loo bilaabo aqal walba beerdheyle u qaato waa qorshe imika yaalo arki doonta waxa soo dhan inaanu eegano shacab iyo dawladba ma aha in ninka ogaadeen jooga maxay Nairobi
sheekh umal iyo kuwa la midka ah iyo faysalkii burco joogay isaga dabqaadiya labada meelood inay idinku maamulaan burco oo lacagna Nairobi idinka soo ururiyeen iyo Minnesota qaar idinka aan idin soo dhex maraan waa la idinka arkay qurba jooga waxaan leeyahay ka kaca aqoonta waxaan leeyahay ka kaca dawladda waxaan leeyahay dadka ku weegi kuwa isaga dhigaya nasteexa ee aan ahayn